xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan Bond waa mowduuc muhiimadiisu wata oo aan kaga hadli doono aflaanta anshaxumada. Waxaan maanta farta ku fiiqi doonaa siro waaweyn oo aadan hore u ogeyn ku saabsan aflaanta anshaxumada. Sanadku markuu ahaa 1870kii ayaa markii ugu horeysay ereyga pornograph oo ku soo muuqday qaamuuska Oxford ee dalka Ingiriiska, waxayna ahayd markii ugu horeysay oo la arkay sawir anshaxumo ah 1874 wuxuuna ahaa sawir ka muuqday wiil galmo anshaxumo ah la sameynayay gabar. hase ahaatee markii ugu horeysay muuqaal anshaxumo ah lagu soo bandhigo ayaa waxay ahayd sanadkii markii uu ahaa 1896 muuqaal oo ka soo muuqday filim magaciisu ahaa Thomas Aronson, waxayna ahayd taariikhda markii ugu horeysay ee la daawado filim anshaxumo ah. waxa ay barigaas soo bandhigeen ayaa waxa uu ahaa waxay dadku aad ula yaabeen oona aad uga xumaadeen oo ay indhaha wada qabsadeen, balse waqti xaadirkan caadiska ah wax kale ma aheene waa dhunkasho bes. hase ahaatee casrigaas waxay ahayd fadeexadii ugu weyneed ee la arko. sanadkii 1900 ayaa markii ugu horeysay waxa soo ifbaxay stage film, waxa uuna ahaa erey qeexayay filimaanta anshaxumada ah ee waqtigaasi, iyadoo isla markaasina loo duubay loo baahiyey qaab sharci daro ah. iyadoo filimkan sharci daro ah haddana mamnuuc ahaa ayuu haddana bulshada si weyn ugu dhex baahay, waxayna ahayd markii ugu horeysay oo soo ifbaxa shartaf anshaxumada ah oo waqti xaadirkan caalamka gilgishay. jira jilayaal caan ah magac iyo maamuus waqti xaadirkan ku dhexle Hollywoodka, isla markaana ay ka bilaabatay shaqooyinka ugu horeeya dhinaca jilinka filimaanta anshaxumada ah. waxaana ka mid ah jilaaga caanka ah lagu magacaabo Sylvester Stallone, ninkan oo jilay filimkiisa ugu horeeyay filim anshaxumo ah oo uu ku qaatay dhaqaale gaaraya $200 ka hor intuusan jilin filimkiisii caanka ahaa ee Rocky sanadka markuu ahaa 1976. sidoo kale waxaa meesha ka maqnayn jilaaga caanka ah ee lagu magacaabo Jackie Chan, waxaana noloshiisa anshaxumo ugu horeeyay ku bilaabay filim anshaxumo ah. waxa uuna noloshiisii jiliinka ku biloobay filim anshaxumo ah, filimkaas oo lagu duubay Hong Kong. iyadii ayay geeriyoodeen inta badan jilayaasha filimada anshaxumada ah, arrinkaas oo sabab u ah fayraska HIV/AIDS oo si weyn ugu dhex baahay weyn ee mas-uul ka ah soo saarista filimaanta anshaxumada kuma taalo dalka Mareykanka sida ay dad badan ay ogsoon yihiin ama ay aaminsan yihiin, balse waxay ku taalaa dalka Canada. hase ahaatee dalka Mareykanka waa dalka ugu horeeya ee lagu soo saaro filimaanta anshaxumada. urur la magac baxay Free Speech Coalition kaasi oo u ololeeyo xuquuqda qolyahan, kaasi oo ka difaaca dowladaha. waxaana jira bandhigyo la qabto oo lagu maamuuso qolyahan dhiga filimaanta anshaxumada si fiican loogu soo dhaweeyo. iskaba dhaafe qaar badan ayaa la guddoonsiiyaa jaa-isyo waaweyn, arrinkaasi oo dhiirigelin u ah in ay halkaas ka wadaan qaar badanna ay ku soo biiraan anshaxumada ah ay jilaan labada qof isku midka yihiin, yacni khaniisiinta 3 jeer ayay ka badan yihiin lacagta ay qaataan kuwa isku midka ah. jira in badan oo ka mid ah jilayaashan jila filimaanta anshaxumada inta aysan jilin waxa ay qaataan daawooyin iyo makaniiniyo si ay hawsha si fiican oo soo jiidasho leh oo muuqaal qurux badan ay u sameeyaan.
soo xaroodo filimaanta anshaxumada ah waxa ay ka badan yihiin kuwa ka soo xarooda ciyaaraha kubadda cagta iyo ciyaarta basketball-ka oo la isku daray. Daqiiqad kasta 30,000 oo qof oo ku kala nool daafaha dunida ayaa kilik garaysa oo daawata filimaanta anshaxumada ah. Mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee filimaanta anshaxumada ayaa waxa ay sheegeen in ay saacad kasta 200 milyan oo qof soo booqdaan website-kooda si ay ugu daawadaan filimaantaasi. ay da'dooda u dhaxayso 8 jir ilaa 16 jir. tobankii qofba 6 qof ayaa daawato filimaanta anshaxumada. kanka 39 daqiiqaba waxaa lagu duubaa filimaan anshaxumo ah. boqolkiiba 35 daawadayaasha filimkan waa dumar. Saamaynta iyo baahinta filimada anshaxumada dalka Iiraan iyo Waqooyi Kuuriya waa dembi uu qofka ku mutaysanayo dil. Inta badan dalalka wadamada Carabta waxaa lagu xukumaa xabsi adag. mar ay isku dayeen koox baarayaal ah oo ka soo jeeda dalka Canada in ay ogaadaan farqiga u dhaxeeya habdhaqanka ragga daawada filimaanta anshaxumada iyo kuwa aanan daawan. hase ahaatee hal cilad ayay wada qabaan. ciladaasina waa ay ka waayeen hal qof aan daawan. intaas ayuu barnaamijka noogu egyahay. fadlan haddaad saarin fadlan subscribe, like, comment, share intuba waa xageeni. cidaan saarinna fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan oo share nagu caawisaan. mahadsanid.